tahay oo mataqaanaa xaaladda aan mataqaanaa waxba laga sheegi karinin aad u istaagtay inaad informationna badan ana horta waxaa joogaa Minnesota صح USCTsana waa ahay laakiin still dee dadkaygii baa weli dhibaataysan soo marka inaan si fiican haysta iyo information badan iyo waxyaabo badan mataqaanaa aan hurdo markaa kasoo kacay waxaan fiirsan jiraba maxaan ahaa TikTok-kaaga si aan information badan uga helo ما شاء الله سولو برادر waa dhowahay in arrintaasna waa kaaga mahad celinaynaa kuleytaba aniga iyo inta kale ee mataqaanaa magacaaga taqaanaba shaqo fiican baa haysa maasha Allah ilaahay mataqaanaa ajri xasanad ha kaa siiyo امين امين دمانتين kuleytaba ice Minnesota way ka dhamaanayaan xogaa شاء الله waa la isku raftay waa la isku baaba'ay ayaga naftigoodana inaysan wax fiican aysan ahayn waa arkeen hadda yar aan saaxiibanahay oo ayaga u shaqeeya oo hadda maanta waxaa arkayay oo haya ka soo noqday oo bil camal oo maqnaayba marka dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed nimanka u shaqeeyaan marka wuxuu leeyahay dee ayaga naftigooda si u socdaan ilaa dad madax leeyihiin iyo mataqaanaa qaasatan Republican-kii baa pressure xun saar odayga صح اد waxaa la yidhi dee November-ana soo socota hadda sida adiga ka waraysan ilaa 42 43 ma aqaan oo Congress ku jira waxay dhaheen dib dambe isku soo sharaxmayno baxayna اد وين kuwa joogana waxay taagan yihiin meesha bela ka dhacday marka waxaa odayga lagu bareesh gareynaa war waxaan waxaa la yidhi wixii dhacwaa dhaceen hadda iyo daba qabasho weli xogaa rajo yariisa bal sameeyo xogaa tanaasul sameey haddii aad samay weysaa la yidhi soo ma waxaa dhacayaa la yidhi wax aan weligood waddanka ka bixinin Republican-ka dhan meelaa la saaraa markii aqalka hoose aqalka sare marka la qabtan adoo ku tuurayana la yidhi ها mushrigaa kida waxay marka caafimaadkaaga ku jiraa inaa arrinta hadda backup ka samaysid inaa annaga saan kusoo laaba lahayn saan uga shaqey lahayn saan annaga haddaa baxan annoo baxaysa haddaa haddaada bixin 4 sano soo socoto 3 sana ku harayso 3 sano soo socoto hal xaba ma tahay hal xaba ma qaban kartid wax kasta waa kaa diidayaan mooshinay kaa keenayaan dhibaato badan ay imaanaysa marka niyo waxaan xogay bal arrintan dib uga laaba tan kale dil markay meesha timaado dad badan oo taageerayaal ahay oo Republican way oo shacbi way xanaaqeen markay arkeen dadkii la dilay اد وين way xanaaqeen ha way xanaaqeen marka waxaa la yidhi January ilaa hadda 12 qof wada dhimatay ay dishay marka waxaa arkaynaa la yidhi Minnesota wixii ka dhacay naag uur leh oo dhulka lagu jiiday cunug ka dhintay gobolada qaarkood wixii ka dhacay waa arkaynaa qof xabsiga xataa ku dhintay oo xabsiga ay daawadii intay siin waayeen saxda ay ku dhintay iyo xabsiga wiilka laba ishiga anu hala ogeysan laakiin laba leed Texas laba ku dhimatay oo daawo la'aan iyo wax u dhinteen dadka labadan qof ee cadaanku bay maqlaan mooy laakiin dad kale jiro dhintay oo aan laga warqabin media ka barnaamij xogay macnaha Minnesota waxaa keenay media pressure ka baa mar meesha xaaladdu kacsan tahay moogtahay marka magaaladana waxaa loogu yahay magaalo violence iska ah oo san odayga inuu isku guuleysaneen marka asna pressure I don't know haddaad dhegeysato waraysi dadna soo qaban rabtaa haddaad dhegeysato waraysi maalin hore u dhahay arrintaas sameynay Minneapolis wax fiican ma ahayn xogay in waxay ahayd uu yiri si soft camal inaan arrinta ula dhil kareyno asi naftiisa xogay waxa uu daayano waxay inuu xogay baash xanuunka inuu gaaray marka insha Allah ilaahay horta nimankaas naga qabto kulleeto wana anaga hadda waana 3,300 ahay hadda ma aqaan 800 xasaas joog inta badan hadda waa baxay ma gudo 2,500 oo baxda waxaan maqalnay inay baxday 700 markii hore adigu end of this week aan bixinay DHS kana balaanka oo laga joojiyo qolo lacagti budgetka waa hakada hadda kaga jirtaa marka si u badan tahay waa wada bixi doonaan laakiin weli hadda shaqooyinka socdo waa runtaa laakiin sida aniga aan ka warhayo oo hoose 700 mar adigu hadda 2,500 baxday 700 iyo ilaa 800 joogta waa 3,500 baalka 3,300 waay laakiin ay guarantee 2,500 baxday ana xalatan kale dadku family leeyahay ma ogido ayaga naftigooda gobol kale laga keenay marka laba bil iyo bar iyo waxbay meesha waa joogeen waa daaleen magaalada xilliga waliba ugu xumaayo qabowga jiray way joogeen inay waa artay ayagu kufa iyo ayagu gacmihii qaarkood xataa istaalaalkii waxaa laga keenay gobollo barf aan laga aqoonin marka furi baa ku gaar naftigooda door xabal ii sheeg xataa emergency xataa loo qaaday macnaha iyo dad meeshaan oo barafkiiba ayaga dhagaxana looga dhigay barafka ma ogido ayagana waxay rabaan dhagax barafaan inay soo tuuraan mogto iyo dad ku soo celiyaan ilaa badini karaan furiba eber ka noqday marka intooda adoo 2,500 ay guarantee waa baxeen
waxaana waa inta kale waa baxayn hadda saa arkay marka insha Allah barada khayr badan ku jira dad kale noo soo qabo insha Allah aye thank you okay bro soo dhawaada we need update ku haysaane taasba soo update ma aha adu update kan السلام عليكم السلام ورحمة الله soo dhawow دو ساعات سؤال ku qaba waraale aye niyo horta wax badan isbedel rabaa oo intana kale ma jecli laakiin waxa uu sir waayo midda kale saaca waxaan ku weydiinaa waxay tahay niyo alaaba meel ka qaadayay marka alaabta mid kamid ah gaarigii ku hartay gaari marka horta alaabta meesha markaan fiirin warqadaha haayeen warqadaha waxa ku socota dhinacaas iyo xagga hoose xagga sare marka niyo warqadaas ma xagga boostaan geeyam soo ka turaniyo adiga su'aashaada okay faasina markee saxiix waa ma igu ciyaaraysaa niyo ما ساعة ولا كم يمعرها والله حضرت وقتنا ورقها ما هي tusina horta xagee joogtaa حق سركي ما رغفنت okay bal xagga saraxayda beesay xagee joogtaa أنا محد جوجا هذا محد جوجا يعني تراك حملك ولا محد جوجا مرة هذا أيوة لكن هاي بصراحة okay gaarigaada taraagaaga waraaqa looga tagay ها yaa uga tagay taraagaaga waraaqa قلنا ما يجي ورقها ماشي كل يوم ما ينام فجأة كارينا ما ينام qoladee way ورقها مسكت تورا مثلا ماشي محقي بوصل أنا qoladee way ويو اس ملكة ayaga iskala waraqaha ورقها حق دولة كما تحكي ما تيواش تليزي واش تليسي كيما boostadii dabas way boostadii waa ka garan waay ninka adiga inuu ciyaar xagga sare markaa tiri xagga hoose isku dartaa waxa ay ورقها شرعي وانه wax badan ma xagga sare ka imaadeen aad tiradan xagga hoose ka imaadeen aad tiri marka anigii waaba yara wareeray marka عفوا fiiri hadii ay waraqahaas uga tageen oo gaarigaaga looga tagay oo US mail ay leeyihiin any post office kugu dhawaageen kartaa ما إذا أنت ورقها هذا فرتي عصر هذا قرر جعل لك مركز فيرين دي ورقها محاوية سبرينكر نار كيما دفن دول حاجة waxaa ku dhahaysa malaha sababtay waxa weeyaan traaga wada traagaga looga tagay meeshaas ugu darab gareynaysa xataa hadaad meeshooda tagid boxi waxa jira oo waraqaha outgoing mailka ay jiraan xataa waa ku rudi kartaa hadii wax yar yihiin okay sawa thank you bro ayo ma santaay ay bal qof ku xiga update ka alaykum asalaam walaal ana horta update ma hayo laakiin waxaan doonayaa fikrad ku darsado barnaamijka maxaa la dhahaa horta update insha Allah next week oo salaasada insha Allah dadan garanaya waxay leeyihiin master hearing insha Allah waxaan rajeynayaa inaan update fiican ka keeno صح fikradan doonaya inaan ka dhibto waxa weeyaan walaalo markii hore horta dagaal cad bay nagu soo qaadeen nimankan ma ogtahay si fiican wada kula arkayo markaas dagaalkii dawaanakii si kasta wada hadal iyo waxay doontaa ha noqotay aanu kaga qayb galnay iminka laakiin waxaad arkaysaa ma boqolaale yani qof oo maxaan leedahay dadkeena kamid ah inaan maxkamadihii loo soo wala geliyay oo maxaan ku dhahday hal judge kaliya lagu soo wala qoray marka arintaasna wada arin aad oo hoos oo siyaasiyiin lagu dagaalamayo marka as community ahaan waxaan u baahanahay inaan wax ka dooda ama maxaa la yiraahdaa dacwad ama isbud gareyno marka fikradda aan kala waxa weeyaan barnaamijka hadii ay ku suurta galayso ina dadka maxaa la yiraahdaa dawladda noogu jira ee Soomaaliyeed ina barnaamijka hadii ku suurta galayso ku soo macsuuntid oo okay good question wiil kamida caawan oo imaan raba that's good هذا يعني because أنك هذه الأيام موقتها محل ده إثيوبيا يمكن دولة هان وين قاعد يسنتهاي هذانا ما أنت والله قال هذا يمكن تي بيستي نيكو هايستان مركا أنك ولي أعلان كاس حتى تي بيستي سومالي ده إثيوبيا كهرباء لكن صراحة ولي أعلان كاس نروح أبدين إنه مكين تاسمينا كدقنا إنه سومالي دو دينا كليدة ما أنت حد يديو لسود جرين كرو وحل سود جرين كرو هديك كوميونيتي هان لسكو دومنا كرو دولة ده حبنا لقوا عسن كريو دي العقل بحنا حتى لو بحين كره because dadkeena weyn waxaan sida loo galay moogtahay maanta dadkeena oo maxaa sharciga haysan oo la dhameeyo de next adiga ku xiga dirtooli adiga un ba wax kale lagu soo raaciyo adigana saasan ba lagu galay marka waxaan rabay barnaamijkeena hadii aad ku soo dartay wada jazakallahu khair fikradaas baan anigu ku darsanayay waan mahadsantiin jazakallahu khair
marka waxaan sameynaynaa walaalkaas markuu noo imaado nala joog haddii aad su-aal qabto insha allah soo qabso kadibna waan weydiinayna laakiin qodob fiican oo runtii ka dhawaajisay maasha allah aad baa umahadsan tahay hayahuna jazaaka allahu khayr barnaamijkan aad buu u wanaagsan yahay ilaahay kaa jasaa'isiyo dhammaantiina waa inoola salaamaya waa mahadsan tahay haye ku soco qofka xiga أنا سؤال قف كنت أقول حسن هو dad qaraabadeenna ah ballamahaasi waa loo keenay khaasatan Minneapolis waxaan moodaa familkaas haddaysan laba qofood aysan ka helin saddex in hal qof ka mid inuu helay ballamuna waa firi close haddana waxaan la yaabanahay Monday la soo dhaafay ballan dad warqad u soo dhacday 18 haddana waxaan rabaa interview in la yeesho so cajiib ma arrintaas cajiib waa firi close wixii waa waxa la arkay wax dib ballan la qabto 30 days ka baxdi hada shalay xataa aniga ticket baan lahay Minneapolis aan tagay ballantu horreys waxa la abta July way dadka Monday ay soo dhacday 18 waxa lagu leeyahay waxa leeyihiin ballan marka hadii la kansal gareeyo information ka saar dadka aniga waa la weydiiyay hadii dadka ballamahaas le ma hadii kansal gareen maxaa dhacaya waqtiguna waa iska calaykum wa alaykum salaam arrintan haddii aan wax yar ka dhaho aniga waxaa ka mid ahay dadka balamaha horta mar dhow geli rabo dhammaantiin wada salaama waxaan rajaynaynaa dhammaantiin noo soo wada duceysaan dadka wax badanaa ka aqriyay arrimaha immigrationka iyo waxa ku saabsan hadda balamadan waayo annaga Soomaali markaan nahay inteen waxa ku fiican nahay wixii waa raadinaa sida community-da kale ma yihiin marka dad waxaa jiro balama horay master hearing hore maray oo haddana master hearing kale loo soo geliyay hadda xaqdarada meesha ka socoto waxa ku ogaanay qof master hearing judge maray judge-kaas aan la sheegin in la fayr gareeyay ama inuu xilka ka degay laakiin qofkii haddana judge kale cusub lagu wareejiyay master hearing kale la bilaamiyay qofkaas oo kale lawyerkiisu la hadli karaa lawyerka ka doodi kara waayo evidence oo haysta inuu master hearing mara waa laga kansali karaa laakiin dhalinyaradeenna hadda mushkiladna haystaa waxay tahay jaajajka hore oo aan haysanay oo ahaa jaajaj acceptance-kooda higher rate yahay ayaa meesha laga saaray waxaa la keenay kuwo republican ah oo high acceptance rate oo negative-kooda ama rejectigooda very high uu yahay hadda for example midkaan igu soo aaday acceptance rate-kiisa waa rejectigiisa waa 74 acceptance rate-kiisa waa 26 taas micnaheedu wuxuu yahay hadda waxa direct la dagaalamaa dawladda waxay direct la dagaalamaysaa Soomaalida gabadhan walaashay waxa ay ka dhawaajisay waa runteeda inteenan sharciga haysanin hadii sida lagu baabiyo kiisas kala la abuura qorshooyin kala imaanayo wixii sharciga lahaa waxa ku xiga I94 green card wixii sharciga la ku soo marka walkii waa mahadsan tahay arrimahan meeshan aad ku soo bandhigto laga doodayo xarajena in sida hadda Ethiopiankii dawladda Ethiopia taagan TBS-tooda loogu soo celiyay dadkii TBS-ta haysatay waayo taas waxay cadeynaysaa in dad dagaalameen sharciyan ay ku dagaalameen marka inaan noogu gudbiso dadkii u dhawaa dawladda ama community-ga u dhawaa si hawshaas wax looga qabto amaasantiin okay adaa mudan haye qof ku xiga noogu socda update haddaan loo hayso walaalo adna wax update hal in lagu yeero markaan kale markii la aamuso adna dad aamusan baa soo qabsaday ma ii soo tirtay ku soco niya horta inuu dhammaanteen faatixada isku marna saaxiib aynu isku qalbi furnaano waxa weeyaan hawlo imika sidii yarka uu ka dhawaajiyo kale anoo master hearing maray baa haddana ku labaad la igu soo celiyey oo la ii soo hormariyey saaxiib horta keligaa ma aha dhammaan waxa meesha ku jira waxaan u sheegayaa hadda loo soo geliyey heerinada neon maxkamadaada adigu xilligii noqotaba 2 cisho ka hor maxkamadaada baa laga xareynayaa motion bittermet in macnaha kiiskaaga la curyaamiyo ama meesha laga saaro la dismiss gareeyo marka dadka badanaa imika haddii lawyerkaaga uu ka jawaabi waayo maalinkaad saa u tagto wax credit meesha kuma lihid
caadi baa lagu macnaha garhka lagaaga gelinayaa waxaan wadanka saddexaad laisku celinayo. marka haddii maxkamadda laguu soo horgeliyey looyarkaaga waa inaad la xidhiidhaa ood ku tidhaahdaa haddii ay micnaha DHS-tu motionkan iga fayl garayso ay iga soo xarayso waa inaad ku jawaabtaa within 2 days or 3 days. marka niyo inta update-kaasa nii hayaa qof walba maxkamad loo soo geliyey looyarkaaga la hadal motionkan la wado waa inuu ka jawaabaa 2 cisho gudaheed. marka intaasaan nagula talinaya insha allah waa isku ducaynaya faatixada mara. amiin 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 amiin. هاي كوسع في كحية. updates maxaa haysaan update soo daaya qofka kor saaran yaa weeyaan. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. سبدو. هذه دكتور صاحب أنا أبي إحنا يا كندا تلي كندا السعودي. درسك هذه. هاي عد كأنا ويا رجال كرقات. ها ويل درسك السعودي oo rabay inuu xagga ka galo dawladda Mareykanka qabatay way tarxiish wadankii ka degdisay marka abeedka abanay ama fuusta tahay walaal waxaas may wallahi fuusta ma wiil aan saaxiibnahay okay xagee joogtaa adiga halka inta Mareykan ma joogaa gobolkee joogtaa Pennsylvania joogtaa wiilkan xagee gobolku ka tagay markii hore isagu wuxuu joogay Minnesota joogay markii xaaladda xumaatay buu qoladii dhawaan baxay toddobaadkii ka horreeyay adiga ka horreeyay marka wuxuu doonayay inuu Canada galo dawladda Mareykanka qabatay okay xagee laga qabtay ma wuxuu maray ma meeshu caadi u maray gaari uu ku tagay wallahi sida uu man sii wareysan ma weydiin halka maray laakiin inuu ku socday ay qabatay dawladdu okay la markii la qabanayo macnaha xuduud ma diyaarada lagu qabtay ma gaari baa lagu qabtay dee qofka intuu hadalka ka baxo gaari Canada ku cross gareynaya maamiirkiisa si u ahaana see loo qabanin qof walba sharciga la weydiiyaa markuu cross gareynaya dhalinyartu badanaa waxay maqleen Canada la galaa Canada amaan lagu helaa arrinkan iyo arrinka ma baaday xataa ma dhamaystirna waxaa sheegaysay waxaa jirana waa warcad wallahi waa warcad maya macnaha fiiri waxaana macquul ahayn qof inuu inta gaari ka qaado hadda Canada dhowr maraan yani waan tagaa okay Canada way nagu dhagan tahay waan tagnaa xuduudda markaas oo gudbeyso waa gaarigaaga waa la baarayaa oo sharcigaaga la fiirinayaa oo ma aragtay meesha la isku qabta gaariga ma maxaa waay dadka markii la soo qaado gaariga lagu soo qaadaa meel lagu dejiyaa markii meesha lagu dejiyo markay soo lugeeyaan sugade ninka odaga gaariga lagu qabto leeyahay macnaha anaga lugtaas iyo howlaha kale hoose waa la socona laakiin meesha laga qabto ugu badan rabaa inaan kuu sheego dadka la qabta oo aragtid waa la qabtaa la dhahayo xuduudka Canada lay qabtaan dadka Canada qabtaan ciidamada Canada qabtaan ciidamada Canada markay qabtaan ciidamada Mareykan dhan dad alaal dadka soo baxay dhalinyaro soo baxday ee la xiray dhameeyo markaas ka bacdi ku siina meega dhalinyaro badan oo waxaa jirta saaxiibanahay oo soo baxay oo xuduudka oo laga qabtay kuwana waa la celiyay waa la tarxiilay kuwana baawna lagu soo siiday kuwana way xiran yihiin balorta magaca deriska magacyada wadamada joojiya deriska marka meelaha ugu badan oo marka laga qabto marka maxaa waaye waliba markay lugta dhameeyaan gaariga dambe ee dhinaca ka imaanayo deriska ka imaanayo meeshuu ka qaadayo meeshaas waa meesha inta badan la iska qabto dadka laga qabto okay waa maasantahay brother taas waa wax la qaadan karo waaye laakiin walaalka kale warkaaga ma dhamaystiro waa ka xumahay because waxaana xogta noocaas oo kale ah adigoo 100% hubin ama qofkii ku dhacda aad keeni karin waa adag tahay in la qaato dadka because waxa tiri asagoo socdo gaari wata kuwa Mareykanka qabtay qof walba oo dirisho aan ku waramo walaal anida Canada wali ma arkin moogta indhaha ma saarin hadana baan sheegin maanta anaga kuma darsanayo deriska leedahay deriska marka anigu wali indhaha ma saarin deriska meesha loo marana ma garanayo markii la qabtay isaga la soo xiriiray uu sheegay wali aliyeeb igu dhahay Djibouti baa laga ma nagu soo xiri kartaa asaga adoo raaliya walaal wallahi inaan ka TikTok ma soo galay laakiin waan dadaal insha Allah maya xataa du soo gal hadaan WhatsApp-kayga aad message ii soo dirto ana lambarkayga intaan ku sii la hadli karaa asaga weydiin karna balse wax u dhaceen insha Allah deriso maxaa ii sheegi rabe in aan saaxiibanahayna maxkamadoo maray oo maxkamada laga wacay oo waliba individual laga wacay waqtigiisa maxkamada looyarkiisa
waxaa loo soo diro waraaqado oo waxay xareeyeen ninkan inaa mataqaanaa meesha loo soo bandhigayo dadka loogu soo bandhigayo inuusan xaq u lahayn oo loo soo bandhigi karin kiiskiisana inay tahay in la dhegeysto weliba waqti dheer maha waa shalay magarat haye ku soco information aa wada maxaa hal mar ku celi hal mar si maaragtay codkaagan xoogaa hoos u yara jiraayo haye ku soco maxkamadda shalayoo balantoo lahayna individual ahayd oo midii ugu dambeysay ahayd master hearing ma ahayn weliba asagana dadkii maxaa waqti hore loo soo geliyey marka balantii markuu tegey zoom oo balantii ku maraayay markuu balantii soo fadhiistay oo jaajki kale oo soo fadhiistay looyaradiisa waxay ku dooday ninkan inaan la wadi karin oo meesha laga tarxiili karin oo wadanka dariska wadanka oo loo qaadayan oo Uganda ah oo lasoo bandhigayan inaan loo diri karin kiiskiisana marka hore dacwadiisa in la qaado in la dhageysto inay tahay aan waxaas loo soo bandhigi karin marka before intay soo fadhiisan ka hor ee dirta marka dacwadaas waraaqadahaas dukumentiyadaas ee dirta ee u dirtay judgekiisa u dirtay markii la soo fadhiistana cadeemankii aa soo dirtay uguma filan oo judge ku dhahay waxay ku dhahday cadeemankii intaan ka badan waa ku soo diri lahay wuxuu ku dhahday waqtigana waa nagu yareysay oo waqti xuna sheegteen dadka client-kan ahaayeen waxay tiri 100 iyo dhowr qofood ay gaarayaan oo aniga u ahay tiri judge-ka u ah marka waxaa la siiyey maxkamaddii waa loo baajiyey dib baa loogu dhigay cadeeman soo dhammaystiraa loogu dhammeeyay marka waxa uu arkay wadankiisana sababta loogu celi karin Uganda sababta loogu qaadi karin in la dhahay soo dhammaystir saas awgeedna maxkamadda loogu baajiyey waa gartay maasha allah waa update fiican weeyaan waa mahadsan tahay 100% marka rajadiisa sii weyn ninkaas afiga rajadiisa marka maxkamadda maanta ilaa maanta waa fiirinayni marka looma soo galin ba weli balanta looma soo galin yar kale to asigana saaxiibana taariikhteediyo maxkamadda maray maxkamadda soo fadhiistay individual oo haystay 20 waxaa la siiyey 2024 kii waa la soo siiyey 2025 kii January loo soo geliyay balantan oo maxkamadda January-da kale 2026 loo soo geliyay balanta teeligeeda balanta loo soo geliyay balanta markii loo soo geliyay meesha balanta la soo imaado la soo fadhiistay marka maxaa jiro dadkan oo markin looyariin qaar ee soo qabtaan dad oo cadaan ah oo ay raadiyaan oo maxaa jiro ee keenaan oo marqaati ku noqonayo oo waxyaabaha oo mataqaana dhibay oo waxay dadkaas marka waxay daraaseeyaan wadankaaga wax ka jira camal ay daraaseeyaan wadankaas ay cadeeman ka keenaan marka qof sidaas camal ee marqaati ah oo looyarkiisa qabsaday oo u keenay lacag lagu siiyay marka midkii yaa la waayay maadaama oo la waayay judge-ka markii la waayo koo dhahay balanta dib u dhigaynaa ilaa ninkaas laga helayo looyarkiisa inta socodsade dib loogu dhigay marka waxaa ku dhahay taariikhteedigeed January maalinta la baajiyay maalinta ku soo xigtana maxay taariikh 5 waxaa loo soo geliyay master hearing dib loogu celiyay ma garatay master hearing dib loogu celiyay oo waxaa loogu celiyay oo hadda February 25 keeda loo celiyay waa gartay okay good update waxaa kaleeto jiro yar kaleeto asigana oo dadka hadda ku sheegayo one time isku waqti isku xilli ayaan isku waqti wada imaanay 2022 yaa imaanay xagee joogaan walaalo dadkan inta hadda ku joogaan Minnesota wada joogaan okay ayaga dhan Minnesota wada degan yihiin yarkan kaleetana marka asna waxaa la soo siiyay balanti individual call high meeshii uu tagay lama dhageysanin ba 5 minutes bismi hadloo dhan wadankii lagu celinaa aalidahooda wadankaas Uganda lagu geynaa ama wadankii lagu celaa ama inaad istarxiisho marka meeshaas meel aadi kara ku noolaan kara amnigiisa safe ma ha u dhahay minuu ku badbaadayo marka waqtiga lagu siinaa lagu dhahay maadaama hadalkaas oo dhahay hadaa ka soo tago maxkamadda ka soo baxayna maxaa loo soo geliyay mataqaanaa removal asna taariikh 28 kii mara maxkamadda January 28 kii mara zoom oo hamiya asaga no kaas maxkamadda dhex tagay maxkamadda dhex joogo zoom yahan waa gartay mahadsanid you're welcome thank you my brother I appreciate that qof ku xiga nagu soco waxaa rabaa inaan ka hadlo arrinta TBS Ethiopianka ma loo ogolaan inay TBS xaaleysan karaan ka bacdi laakiin kuwii hore u haystay ee ka dhacday waxaa loo ansixiyay inay aan la hadli karin ay joogi karaan wadanka xagee ka soo xawarisayna walaalo jaja maanta ansixiyo dhaa Ethiopianka wadanka TBS ka dhacday ma la hadli karo
tii shalay soo ma ahayn halkan laga sheegay ها maanta ma ahayn ها شال marka ميد marka waa la hakiyey oo waa la joojiyey junctionka waa la saaray waa aragnay waa wargeysyada soo qoray laakiin tu cusub ma xareysan karaan macnaha xagee ka imaatay ma warkaasu la socday because abro joji TBS laba xal sakra Allah okay so kuwii Ethiopian haystay ayaga waa safe way waa loo extend gariyay sax ها okay waa maasanta midda kale waxaa rab inaan ku daro arrinta yarka hadda uu sheegay waxaa jiro prosecutor oo dowladda u shaqeeya oo ka soo horjeedo inta kiiskaada la gaarin oo wuxuu xareynaa maxaa la motion oo judge-ka uu diraayo uu leeyahay ninkan waddankiisa wuu ku noolaan karaa waddanka in laga tarxiilo waa waxyaabo badan oo beenoo kaa gudbinaa ma garatay judge-ka uu gudbinaya yaa wayna prosecutor oo dowladda u shaqeeya adiga ka soo horjeedo taas waa dee shaqadiisu ay Soomaa goolkiisa waxa waaye inuu win gareeyo way goolkiisa inuu win gareeyo waa laakiin warqadahaas wuxuu ku qancinaa judge-ku wuxuu ku qancinaa in kiiskaada la dhageysaninba oo removal lagu siiyo ma garatay marka lawyer qofkii waxaa fiican qof walba oo lawyer haysto inuu judge-ka la xiriiro oo dhaho wax ma jiro emotional oo ninkan laga soo gudbiyo oo ninkaas oo dadkaas ay ku soo gudbiyeen police hadday jiraanna waxaa u baahanaa inaad iisoo dirto kadib lawyerka uu fiiriyo waxyaabaha ku qoran dhan oo ninkan cogsanaayo okay marka saas thank you Barcelona waa maasantahay haya noogu socda update-ka walaalayaal wala idinka raaliya Barcelona raba inaan su'aal weydiiyo igana raali ahaada kusoo Barcelona wala waxaan ku oray may maqleen go ahead laba inana walaalanahay ba TBS haysta marka waa dadkii ay ka dhaceen dadkii imika dhawaan madaxweynuhu ka kansalay marka imika dib uma xareysan karaan tooda u shaqeynaysa miyaad leedahay tooda u shaqeyn saa maqlaan laakiin wax aad dartaan hoosac usii hoomayaan ayagu waxay ku jireen TBS Ethiopian kamiya ha TBS Ethiopian ka ahaayeen marka hadda markuu madaxweynuhu kansalay way haysteen laakiin iyadoo dhacday baa aniga iigu wardambeysay marka wax dambe oo ka sheekeynayo ma arkanan hadda cid walba TBS haysato Ethiopian dowladda federaalka waxaa ka hor istaagay judge ayaa ka hor istaagay in ay mataqaanaa ay target gareeyaan ama ay dhahaan expire bay noqotay oo xilliga loo qabto expire garoobay waa la tarxiilayaa judge baa arrintaa ka hor istaagay marka maxkamadda administration hadduu appeal ka qaato waa goonideeda waaye laakiin hadda waqti xaadirkan sharci uma laha inay maaragta dadkaas si temporary of course inay DHS ay qabato midda kale DHS iyadaaba hadda budget la'aan haysaba haye ayagu walaal waxay ahaayeen 3 qof oo marka gabadh baa ku jirtay waxay ahaayeen waliba dadkii markii uu Biden joojiyay uu yiri xagaa wax ka soo codsada marka gabadhii waaba la siiyay sharcigii laakiin inamada TBS iska xareysteen ka TBS tooda kale waa kan imkan inankan wax fiican ka sheegay shalay bay ahayd malayna markuu judge-ku hor istaagay junctionka but that's a good news for the Ethiopians February 13 ay dhacaysay tooda iyaga waa la safgareeyay Haiti waa la safgareeyay waxaa hadda miiska saaran oo laga cabsi qabaa inay dowladda Trump ay weyngareeyaan midda Nepal iyo Honduras iyo Nicaragua inay ahayd malayna saddexdaas ayaa Trump inuu weyngareeyo oo dadkaas ay dhahaan waa tarxiileynaa laga yaabaa because already maxkamaddu waxay la safanaysaa Trump administration midda Soomaalidana taas waa warkeeda la sugayaa because waqti badanaa ka dhiman March 17 waaye waxaan waxaa jiro national TBS advocate jiro oo aan kala qaadin TBS iyadoo dhan oo iyaga u doodaana jiro maxkamadda geeyaan maaha inay dadka TBS ayaga loo yara qabsadaan shakhsi waxaas maaha mid waxaa jirto markay dowladda federaalka saan oo kale as a group u target garayso in hay'adahan ay mataqaana ay maxkamad tagaan oo ay ka hor istaagaan dowladda federaalka inay dadkan ay tarxiisho ama ay dadkan ay dib u celiso marka Soomaalida TBS-tooda oo dadka oo mataqaana lawyerinta hadda ay qorayaan oo hadda wiilka hadda mataqaana ku sheegayo oo shalay maxkamadda lahaa lawyerkiisa wuxuu ku dooday ugu weyn maxaa madaxweynaha waddankan qofka judge-ka u tahay madaxweynaheena oo waddanka Mareykan leh waddanka safe maaha ma garad marka wixii waa sheegtay madaxweynaheena waa sheegay marka cadeemo soo raacsiyaa lagu dhax marka dadka inta badan hadda ballaman kale marka inay lawyerkooda ay ku dhahaan hadda wiilkan xataa
lacagta kugu shaqeynaya lagu dhahaa maadaama shaqadan ku qabanaya waxaan ku waxayna lacag extra kaaga baahan marka dadka ballaman kale oo ballamanka tegayaan oo hearingka leh inay lawyerkooda oo asan ugu doodo inaan su-aashaas dhanba la hor weydiin karin qofkan ilaa kiiskiisa la dhegeystaa kabacdi oo go-aan laga gaaraa sababtoo ah fiiri hadda waxaa lagu leeyahay qofka wuxuu xaq u leeyahay for 3 hours and 30 minutes 4 hours in loo wareysto kiiskiisa oo socdaa oo la dhegeystaa oo lagala doodaa waay haddana 5 minute waayaba inaa hadashaa oo kiiskaaga dhan dhan ku yahay magarad wow marka before intoo kiiskaada la gaarin maadaama hadda ballanti leedahay lawyerkan inuu shaqadii kuu qabtay inuu dadkan ballaman kale inay lawyerkooda ay u tagaan ay ku daba kacaan inuu waxaas in la qabanayo ay jiraan sidaas marka loo qabtan ay sidaas u suurtagelayso inuu la daba kaco inuu qofkan ka gudbiyo inuu meesha safe ku ahayn ninkaana xaq u leeyahay horta in la dhegeystaba wuxuu wax u xareysa dacwada xareysata oo lagaa qoro ee dowladda lagu gudbiyey waa inay dowladda kaala doodaa oo mataqaana wax lagaa weydiiyaa su-aalo lagaa weydiiyaa صح ku fahmay waraa niyo waxay ku soo dhalinyarada waxaan ku soco السلام عليكم ay salaam waxaan information yariisaan waday dadka oo maxkamadaha ay waxaas aadeen saan u maleynayo looyariintooda waxay kula taliyeen hadlina meelaha informationada badan bixinina dadka saaxiibihiina wax information kala share garee WhatsApp Facebook waa ka wici kartiin because adiga waxa lagu soo dhahay qofka walaalka waa u sheegi kartaa because tomorrow wuxuu isku diyaariyaa leedahay uu leeyahay qofka marka muhiim ah Facebook ina TikTok ka hadasho muhiim ah ina Snapchat kiiska kala hadasho laakiin dadka walaalaha informationada waa u sheegi kartaa wixii lagu soo dhahay iyo waxa soo muuteysatay sida qofka kale wuxuu sugi kar because dadka dhan anxious walwal baa haayo marka they have to know what's going on laakiin qof kasta markuu aamuso wax qofkii walaalka almost 15,000 sharci sug Mareykanka ee cusub oo wada maxkamadada la soo wada dhajiyay marka next person wuxuu filanaya ma yaqaanin marka dadku waxaan ka codsanayaa qofka walaalka u sheeg wixii ku soo muteystay sidii walaalaha kale oo u gaarsiiyo oo like update la kala qaato muhiim ah WhatsApp ina ka hadasho muhiim ah TikTok ina ka hadasho laakiin qofka walaalka information ku la wadaagi kartaa assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله أدرس اوكي ما كسع waxaan waday maxkamadda magaalada Masrahiirina haye maxkamadeeda loo soo galiyay mayna ahayn hore bay ugu jirtay maxkamad hore ugu jirtay iyadoo master hearing haye marka way soo martay tii kalena waxaa loo soo geliyay 2028 waxbana ma lama okay gobolkee walaal waa siyaaral waa Seattle marka master hearing hore lahayd oo hore ugu jirtay and then way tagtay waxba lama soo dhihin maxkamad kale baa loo balimiyaa okay ahayd gaadho goormaa loo qabtay 2028 dheydka ay maxkamadda tagtaa ka wadaa shalay bay tagtay shalay bay lahayd ay tagtay marka su'aal kalaan qabaa oo rabay inaan ku weydiiyo warqadda TPS-ta ee la leeyahay yani waa la joojiyay sukume Ethiopia lacala hadii la ansixiyo oo loo ogolaado qof aan haysanin oo asylum ma buuxsan karaa camal ma aan awal haysanin كل سؤال سبي عمرك وفهم الله warqadan TPS-ta oo Soomaaliya ama TPS Soomaaliya Ethiopia lacala hadii TPS Ethiopia qof haysta aan haysanin oo asylum ahaa ma qaadan karaa camal ma codsan karaa inuu qaato qof asylum ahaa miya mise intii hore un baa loo daynayaa oo haysanaysa camal loo ogolaaday يعني قف توبيان هو asylum haystay أنا فاهم السؤال شيء أنا فاهم طليب waxay ku dhaxday qof oo qof aan haysanin
markiisi hore aan xareysanin ee ku dhahday TBS ta aan xareysanin maadaama hadda la kansala haddii loo ogolaado oo TBS Ethiopia way ku joogi kartaa way u furan tahay haddii la dhaho qof aan hore u xareysanin hore hadda ka bacdi ma xareysan karaa intaasay ku dhahday okay taa horta lawyer la weydiiyaa ku qurux badan laakiin inay hold ku jiraan oo aan waxba la xareysan karin way generally sida guud in loo wada joojiyey oo kuwii horeba la rabo in la tarxiilo waa ognahay laakiin waxaan ku talin lahaa su-aashaas inaad lawyer ay gabadhaas weydiiso ama lawyerkeeda weydiiso inay isbedelka noocaas ka samayn karto qofkii arrintaa garanayana ku soco ama experience u laho isagay kusoo dhacday waa tahay maasha allah haye ku socda akhyaarta update maxaa haysaan maxaa war haysaan maxaa soo kordhay idriso gabadha haddii wax yara ugu daro ayadoonan lawyer ee ku laabanin kolley waa ogtihiin TBS ta markii wadanka loo ogolaado DHS ayada announce gareysoo dhahdo wadan hebel waa loo ogolaaday TBS ta waxayna applicationkooda buuxin karaan from datekaas ilaa datekaas marka Soomaalida waa ogeedeen TBS ka waxaa la dhahay ina xareysatiin waay from July ilaa iyo September dhamaadkeeda sanadkii hore 2024 marka maadaama hadda aysan dirin DHS wax ay announce gareyso waxaa lawyer na weydiiso sax inay sugto inta laga announce gareynayo haddii loo ogolaado in Ethiopia mar labaad ay dalbadaan maadaama hadda oo waqti fiican ay taagan yihiin oo ayaga loo ogolaaday Ethiopiaanka commented kushagreese the article they cancelled the TPS or terminated the TPS for Ethiopia. So that's what she shared on the comments. You can come up if you want. But also they're increasing beds to 92,000 for detention. So I don't think ICE in Nayan because they're looking for capacity in a melee raganayan or a sarirta, like a space a helane gayan. So I don't think in a Georgian and the ICE thingy. I think it's just for them in Hitanka has a Georgian so they can, arrest them on the down low. So that's what I wanted to share because I don't think why would they look for to increase the spaces? And then it's also saying that they're thinking about using mega sites for detention centers. السلام عليكم. السلام كسادة. سؤال يربان دح قشنا shaqadaadii hore aan tan la xiriirin maanta ma waxa jirta ELD cusub oo la rifoogareeyay inta ogaalkaya maanta ma hesha ama February 12 ama ahayd markii la rifoogareeyay ay soo saareen shalay shalay ama darad mid bay ahayd shalay aan aqrinay articlekaas marka liiskooda ma haystaa mise waa raadiyaa haddii aad Google ku qorto ELDs FMCSyada report ku qortay ku soo saareen kuwa cusub lagu soo daray waaye shaqadii hore inoo wad marka ay ku socda akhyaarta abdi hayo qof baan isku dayaa laakiin soo geliyo ay kortad saaran halo ma maqashaan أنا واحد بعيدة ما هي هو سيدك شاشة دوم بنكارة هاي. idriso anaga waxa sugeena qofkan soo wadid waayo su'aalaha aan qabno legalka asa u weydiino oo asagana aan u aragno waxyaabihii talaabooyinka ku habboon in community u gaar ah oo arrimahan Soomaalida hadda nagu soo cusboonaatay ka doodi karo oo ilaa hadda ma arkin wax social media xataa ka sheegaya laga soo bilaabo senatarada korkoro Soomaalida ilaa ay lagu keeno kuwa districtyada haya xataa ma arkin ilaa hadda wax ka hadlayo dhahayo sharcigan cusub oo ah maxkamad degdeg ah iyo judges hore aanan u jirin update sidoo kale waxaan ku helay oo wiil ila share gareeyo wiil maxkamad tagayna loo sheegay sida la yaqaano ama sida la og yahay judge marka uu qof xukun oo la soo fariisanayo in kaligiis judge-ka uu meesha fadhiyo oo judge-kaas uu xukumi karo laakiin hadda waxaan wiil ila share gareeyo maqla shalay uu dhahay
jaajka markuu meesha fadhiyo labada dhinacna waxaa ka fadhiyo laba qof oo DHS ka socoto introductionka ku jiraan jaajka uu leeyahay aniga jaaj hebel ahay qofkan dhinaca iga fadhiya midig waa hebel DHS ka socda bidixna waxaa iga fadhiya hebel DHS iga socda marka taasna ishkaaliyada meesha ay ka socotay cadeynaysaa in jaajka xataa go'aamada uu gaaray kaligiis uusan gaari karin su'aalo tiro badan waa qabnaa qofka haddii uu yimaado qof walba waxaan dhihi lahaa ka faa'iidaysto okay waa tahay dadka kor soo fuulay kusii socda update-ka noo wada maxaa haysaan hal idin kula yeero wayaan ku socda السلام عليكم alayhi salaam warahmatullah dhammaantiin waan idin salaamayaa niyow update ma hayo idinka update idiin soo doonta aniga marka waxaan rabaa inaan idin weydiiyo Soomaaliya TBS-teeda maxaa la yiri wax cusboonaysiina weli waa 8 March 17 ku qoran weli update lagama hayo markay ayaamaha soo dhawaadana wax laga heli doonaa warar laga heli doonaa laakiin hadda wax ka soo baxay ma maqlan aniga personally Ethiopiana Ethiopia judge baa joojiyay oo ka hor istaagay dowladda federaalka inay arrintaas ay fuliso okay ayana aad u mahadsan tahay waan kugu xidhanahay aad baan kaaga mahadcelinayaa shaqadaada sababtay mudan ku soco the king ma joogtaa shari khair miya shar iyo ku salaam saaxiib ku salaamay aniga update ma wado dad ku dhageystaan ka mid ahay barnaamijkaaga la dhacsan aad baad u mahadsan tahay sida sharafta loo dadka aad u maciinayso waa dadkaagii waa hawl adigu aad maaragtay isticqaantay laakiin hal arrin ku darsanayaa niyow dadka meesha kugu jira ama update-ka raadinaya waa dad cusub oo luuqadda aan aqoonin marka especially dadka xogta haaya oo sometimes wax ka hadlaya oo raba inay xog sheegaan haddana ingiriis waxaa laga yaabaa qofka inuu ingiriis ku bilaabo ingiriisna ku dhammeeyo marka isaga caddaan muula hadlaya waxa meesha saaran waa Soomaali asagu waa Soomaali af Soomaali aan ugula hadlo codsiga naga tahay waniyo dad oo ingiriis ku hadla ma joogo ma ogeyn aniga dadka af Soomaali baa u wadaystay ku hadlaanay maxaa dhacay maxaa hadda gabadhii meesha ka tagtay ingiriis ku hadlaysay gabadha weli way saaran tahay ingiriis bay dabada qabatay markaan hal qof oo dee gabdhaha hadda waddanka ku kora markii wiilashaan hadda hadlaayo dhan iyo dadkaan af Soomaali 95% waxaan dhihi karaa af Soomaali dad ku hadlaanay marka codsi kaliya codsi waaye midda kale gabadhaas hadday ku maqasho iska ilaali koray saaran tahay waa walaasha waa ka raali garaynayaa wallaahi dhib male kafta waa furan yahay waa tala fiican weeyaan bal insha Allah dadka hal loo mix garay luqadda haddii waxyaalo muhiim ay jiraan af Soomaaliga ha loogu sheego insha Allah waa qodob fiican oo muhiim weeye aniga qodobkaas aad u taageersan sababtay tahay waxaan xasuustaa hadda ka hor sheekada magalayga dhibaato ka bilaawday truth media wali bad kalena gelinaysaa waa cabsanayaa inaan cabsano loo cabsadaa maqashay mawlid my brother so dhow idris iyo dhammaan Somali family iyo akhyaarta kor iyo hoos booda joogta waa salaamaya Allah idin barakeeyo anuu ma habeenkii ma joogi karo ilaa aan 5 daqiiqo aan soo dhageysto qolkan iyo waxa ka socda ilaahayna subxaanahu wa ta'ala bil Ramadaan baa la galayaa Ramadaan hana gaarsiiyo amiin maahana waxaan leeyahay cabsida ku jirta ilaahay cabsida anaga saaro waayihii wacnaa waa soo socdaan wax walba oo xumaada waxa hagaajiya dadkii baa soo baxay guud ahaan wax update ma wado niyadda dadka inaan maaragtay u dajiyo lana duceysto wax kasta dhacana ay u dhacaan qadar u dhacaan baan u soo koray waxaan u banaynayaa furaaqada walaalaha kale oo update-ka sugaya ugu dambeyn xagga dambaan rabaa inaan mar kaga darsado isku soo bax weyn oo ilaa 10,000 ilaa 5,000 oo qof la rajaynayo arbacada soo socoto February 18 inay state capitalka isugu yimaadaan dadka muslimiinta ah inay ka soo qayb galaan baa la rabaa isku soo baxan waxaa la yiraahdaa affordability Donald Trump doorashadiisu waxay ahayd wadanka sicir bararka la dagaalaya maciishadan hoos u dhigaya waxa uu ku dhaqaaqay waa cagsigeeda
iga rumayso idriso konton maqaaxi baa xiran dadka waddankan ka shaqeeya dadkii sharciga haystay horta waxaan rabaa walaalaha Soomaalida in ay aaminaan inaysan sharci darro ahayn warqadda shaqada ay haystaan waysan codayn karin mooyaane waa dad sharci waddanka ku degan waa mid la dhaafi la yahay dhaqaalihii state-kan hoos buu u dhacay that's why aan rabnaa attention-ka qorshahayagu waxa weeye newska inaan saarnaano maalin walba inta xaaladdu ka fiicnaanayso maalintii newska nala ka waayo Minnesota waa u dhamaanaysaa marka inaan newska saarnaano oo mar walba dadka ay qalbigooda nagu hayaan istiidada kale baan rabnaa nagala soo qayb gala waana mahadsantihiin moodka idin gelaya waa arbacada waxaana meesha uu kulan ka dhacayaa waa Minnesota State House somaha ha St. Paul mid ku taalo oo maartay governor ku fadhiyo waa ku meeshaas ka dhacaya marka dadka reer Minnesota in laga qabto in laga qayb galo weeyaan affordability waxa laga wadaa hadalkii beenta ahaa ee Trump uu campaign-ka ku galay in laga daba tago ma fahanteen marka numberka dadka soo baxaya muhiim weeyaan saacadu waa 1 pm to 3 pm somaha ha aan flyerka dib u fiiriyay kaada ay soo dirtay ha waa arbacada February 18 bishaan hadda aan ku jirno 18keeda waaye kooda duhurnimo 1 pm to 3 pm Somali time 12 pm meesha sii taga okay marka wuxuuna ka dhacayaa Minnesota State Capital uu ka dhacayaa muslimiinta oo dhan baa isku soo baxayso cadaanka isku soo baxayo Soomaalida isku soo baxayso immigrant-ka isku soo baxayo meeshaas waa in la imaadaa waa in governorka la tusaa waa in Trump la tusaa meesha si wax u socdaan marka mudaharaadka weyn waa in laga qayb qaato weeyaan sabab baa jirta loo soo abaabulay marka dadkeenana waan ku dhiirigelinaynaa waa 18ka bishaan hadda aan ku jirno 18keeda weeyaan waa maalin arbaca ah saacaduna waa kooda duhurnimo okay somaha saas weeyaan ha arbaca weey ha waxay leeyihiin walaaluhu waa first day of Ramadan ha waa ku bilaabaynaa Ramadaanka waxaan ku bilaabaynaa dagaal anagoo sooman ban waxaan kaloo rabaa idriso inaan kugu bishaareeyo 150 delegate baa maanta isugu kaya timid Bloomington Masjid Rahman across the state of Minnesota dadku excited u ahaayeen u faraxsanaayeen meel aan laga soo gelin mana meelaha qaarkood waxay ku leeyihiin keligay baa ka soo galay dadka qaarkood waxay yiraahdeen meesha markaan tagnay 70 qof oo cadaan ah u soo galnay marka anigu galay gabar baa tiri xijaabkayga lagu arkay dadkoo dhan waa ii istaageen wow marka runtii waxa kan socda sabab u dhacayaan sababta u dhacayaana waa meeqaanka iyo meesha aan gaarnay ugu yaraan waxa la rabaa inaan booskeena difaacano ugu badnaana inkan meesha aan ka tuurno liiraado Donald Trump waxaaba ridayba Soomaali waxa hadda soo socota doorashadii waxa maasuqay Soomaali waxa badan ma soo socota 3 sano u diyaar garooba iska dulqaata in maaragtay in la xoqdo kaarka in la xoqdo u diyaar garooba laga wada arintaas waana la socotaan Trump wuxuu damacsan yahay qofka waa u maleynayaa inaad update-kaada ku sheegtay Idrisow qofkii kirooyinka raba in laga caawiyo qofkii raba business iska leh ragaadii businesska kugu xirnaaya gabdhihii state-ku budget fiican buu rabaa inuu meeshan qof wax buu xoqonayaa laakiin Idrisow waxa la rabaa dadka in looga digo wariyaan lagu qaban adoo labada gacmood ku cunaya wax sax baashu ku dalbata hadda ma dhihi karna ereyga inagu dhaheen moogta صح وي labada gacmood qofka waxaa la rabaa hadduu baqaaxi leeyahay ama xalaal leeyahay oo dadku ka tageen oo xirmeen oo inkamkiisii hore inkamka hoos ka soo dhacay please buuxsada dalbada hal gacanna lagu cuno baasha iskana ilaaliya shaqool inuu ku jiro waa laga yaabaa anuu hadda I don't trust these budgets marka iska ilaaliya warun laakiin diigmada hal gacan lagu cuno waxba hagaagaya ha inta waxaa la rabaa waxay ku weydiinayaan inta shaqaale ku joogtay waxaa samayn jirtay monthly waxaa loos gareysay imise maalmood ay xirneed
business losski kugu dhacay waxyaalahaasa la rabaa in la ogaado marka budget lacagtay baasinayaan 10 million miya saan maqlay waa Minneapolis kaliya taas hadda midan mudaharaadkan aan ku jirno horta mid ogaada waa sax qofka Soomaaliga ah way dhibsadeen sida Idris oo kale aaminsan yihiin waxa kan in laga shakiyay laakiin lacagta tani horta sideedaba waa lacagtii canshuurta marka haddaad sax tahay oo aad business owner tahay oo ilaahay kugu og yahay hadda maanta maqaaxibaan ka cuntaynayay wuxuu yidhi a day and night 2,000 baan khasaaraynay caddaynteedii ma haysaa haa then there is no reason wax ma jirto walaalkii yidhi ingiriiska naga daaya ma jirto wax uu qofkaas uga boqo inuu xaraysto haddii aad guriga ku xiran tahay oo ama shaqada hadda dad badan oo waxaa jira hadda shaqeeya volunteer oo shaqooyinkii laga soo cayriyey dadkaas xaq bay u leeyihiin innagu waxaan rabnaa inaan soconno aanan baqinin lacagahaas xaq baan u leenahay labada gacmood una laga ilaaliyo weliba gacanta midigta ah sida rasuul maaragta eraygaas diidana celinayne haysato qofku inuu caddayn haystaa muhiima waa ruway arrintaas way jirtaa dadka small business ownerska ah budgetkaasaa jiro Minneapolis iyo mid state-kaba laga shaqeynayo tii kirooyinkana waa tii halkan looga hadlayay habeen saddexaad baan malayn inay ahayd marka qofka arrinta ay saameysay ha ka faa'iideysto insha Allah ha ka faa'iideysto qofka arrinta ay saameysay ha ka faa'iideysto Idrisow yahuudu 100 sano waxay xoqonaysay Hitler baan laayay inagu in badan baa wax rabnaa insha Allah inaan dhaano waagi Trump baan laayay ma garatay laakiin waxa loo baahay dadkii uu naga diray dadkii uu naga laayay dhibaato inuu geystana waa inaan dhahnaa holocaustii Soomaalida ku dhacday ها walaalo waxa jira hadda inta raadiya dadkii la xiray oo dhan qofku inuu baqan maaha xisoodo hadii lagu xiray hadii lagu qabtay hadii lagu hanjabay inuu qofku soo baxo way wadankani waxyaalaha ka shaqeeya waxa kamid ah Soomaaliya waxay dhahan jabkaaga waa la qarsadaa laakiin dalkan ma arag wadankan jabkaaga lagu faanaa way ka duwan tahay America waxa weeye dhabkaas la geystay lugta laga jabiyay shaqalaana ay ugu dhacday Trump dhibkan uu geystay maanta oo dhan jabkaada ina ka sheekaysaa wadankan waana lagu badbaadaa waxna lagu helaa adiga nin maaragtay wadanka waxa kaga yaabaysaa sidoo adduunka uga duwan yahay nin taajir ah oo billionaire ah oo donation aruurinaya arkaysa donation aruursanaya ay ka sheegay adiga ay Idriso aniga gaari baan iibsado gaari bay laga dhacay gaarigiina way iga qaateen lacagtiina waa iga dhacantay ma siinayaan wax kulli wada loos kugu dhacday warqadii aniga ku gatay iyo wixii oo dhan waanaya laakiin markay cishadeen warqadii ma yasiin gaariga miya laga xaday maya qaab yar oo ii qarsooma ii qariyeen baa yaan gadaal ka ogaaday gaariga waxay igu heshiiyeen 34,000 bay iga siiyeen sax markaasaa show 34 kala ayaa saaran gaariga interest ku qariyeen taasay ii qariyeen mid luqadana kumaana fiicnayna mid ila socday oo luqadana qanay yidina waxba muuna aqoonin sax isku si bay noo wada gashay 34,000 baan gaarigii wada gashanay maskaxda mid kale oo weliba wacnayna oo la sheekaystay oo ay u sheegeen in indaraxi ay nasaarteen kaasna annagii wax naga sii qariyo Soomaalina ah I don't care isagii buu ku yiri waxba igama gelinaani waxa doonta ka samee annagiina nama oran ninku waxa soo inii qarinaya marka gaarigii way cishiday waan u celiyay waan iska celiyay adiga markii lagu qarinayo indhaha soo shanta ma ahayn soo ma furneen waa laga saxay be inta saxiixin ka hor maxaad isaga akhrin weeday ChatGPT isticmaal weeday qof kale oo ku kalsoonta u weeday absolutely taasay saagtay waa 4 baa laakiin way igu heshiiyeen indaraxiga ay saarteen iyo bangi baa maana bangi lahaa bangiga bay qaadi lahaayeen bangi kale iyo ila aadeen marka taasoo kale xagee lagaga tabaaran karaa walaalow gaariga hadda intuu ku dambeeyay haystaa eeliga qaate way qaateen oo macnaha ma xilligii 3 bil gudood miyaa lagu celiyaa masbaqa lagu celiyaa may adiga ilaa 7 bilood baan haystay lafteega xoogaa baan ku shaqaystay hay markaa u celisay ma gaarigii lacagtiisa ma ka rabaan maya waxba igama rabaan totally waxay
dee 34tii isaarnayd ayagoon helin laakiin 34tii kale ay haystaan ayay gaariga ceshadeen dee khasaara qabtaaye khasaaraan qabaa aniga markii ayagii aan ogaaday aan dib sheekadii ka ogaaday aan yidhi misaa igu hadhay unbaan bangii baa igu soo taxalluqa qoladii dhiilarkii aan gaariga ka iibsaday qola aan ahayn baa yaa igu taxalluqda qoladii unbaa walaalka waxaan dhihi lahaa maxaa inii haray ku dhameeye lacagtan waxaa keliya oo xaq u leh qofkii ay wax saamayn ku samaysay occupationkii ama dadkii nagu soo duulay laakiin intaan waxay u eg tahay private business waaye marka adigu bankigaaga inaad qoladaasna si gaara ula dacwooto waaye ma garat anigu ninkii gaadhiga iibsaday baan ahaa haye markaan 34tii aan dhameeyey dhowr iyo 20 bay markii hore 25 kaashaan bixiyey inta kale aan dhameeyey yani maxaa inii hadhay markaasay dhahay 34 kala hadhay taasaan ku ogaaday inay lacag saaran tahay wow 34tii markaan dhameeyey bay yaan qoladan igu taxalluqdo oo warqadii soo dirtirta oo masjidii soo dirtaan wacay lambarkooda walaal ma shirkadu ama private waxa ka gaday waa dealer weyn waa dacwey karta jaanis hasta cadeemada haysatid taas ogow adigaan gaariga waxa ku qoran dacwada u furan maxay tahay wax ii furan ma jirto 20 sax macal bankigaas heshiiska waxa ku qoran adii wax 7 bilood baan watay raala noqo ilaaha ku barakeeyo inta marka taas waa arrinta in hadda socoto malena oo buuq inta jiro laakiin haddii tobilas raaliya ka tahay in nus anaa kugu markhaati far dadka la iska dhaxata maya taas waan galay iska daa taas waa khasaare laakiin arrin kalena aynii sheegay ni horta saad wax in badan baan yar dhegaysanayay waad fiican tihiin laakiin dadkeennan dalkan si yar oo aan yar warqadan aad sheegaysaan la siiyo waa un dad si yar kusoo galay dalkan oo kale somaa qoranti iyo aan kusoo gelin warqadee waxaan aad ka sheekaynaysaan dadkan soomaaliyeed aad ka sheekaynayseen waxbaa lagala noqday waxbaa laga kansalayaa waxbaa adyadiin waa dad see ay ahaayeen ma dad qaxoontinimo kusoo gelin bay ahaayeen dalka dadkan sharci sugayaasha miya ahaa work permit bay haystaan oo hadda dalkayba ku sugan yihiin ayagoo oo halkan ay sharci ku sugayaan marka dadkaas intay dhan yihiin tiradooda 2,000 dalkeennii miyay ka rajo dheereen khalaas haddii halkan ay wax ka waayaan inay dalkoodii uu hodan yahay oo mooraalkoodu ma dhinac buu u dhacsan yahay mise waa dad mooraal haya dalkoodii iyo dadkoodiina oo dad iyo dal leh iska dhigaya mise weydii maahir baa kor kula saarno malaynaya miya halkan ay joogaan bal sheekaysta idinka iswaraysta waa kaase yaa ka mid ah ninka agtaada garabkaaga haddaa ka imaanaya shimay u laabanay imisaad joogtaa anaa u jawaabaya abti hadda adiga 7 bil inta u joogtaa hadda adiga baxtiga goos xamar tag wadan ka soo sheekay kadib noo imaw barwaaban u socdaa ay dhageyso imisaad joogtaa kobtan maya hadda kista horta noo qad nooge meel noo fur laakiin beriha dhihin wadankan imtixaanka annagii sharciga haysanay aan ku imtixaamanahay adigu inteed joogtaa adigu waa ku imtixaamanta laakiin aniga alxamdulilah nimcaan ku haysanaa xaqiiq markaan kaan hadlo imisaad joogtaa kobtan muddaan joogaa bil ma dhan tahay mise dhowr sana joognaa citizengaa dhaafnay 3 sano ma gaadhay citizengaa dhaafnaa kudhaa xilliga citizenka waa dhaafnay haddaba dee niyadaada khayr u sheego dal iyo dad baad leedahay hays moraal xumaynin haddaad warqadan weydaan dalkiinnii ku xamdinaqa oo aamina xaji adi meeshaan markii ugu yaraataa 4 sanaa joogtay 25 kun wax yaraa kaa maqan anaga waa soo tagnay badaa soo marnay rafaa soo marnay waxa waaye abu abta ani idaf hal mar abta su'aalan ku weydiina meeqa sanaa joogtaa anigu hadda 12 baan joogaa
caruur ma ku dhashay laguma dhali kara caruur meesha ma ada caruur ma ku dhashay anu kuma dhalin kumana dhalayo xaas ma ku guursatay war lama guursan kara lamana dhali kara meesha niyo waxaad ka soo doonteeda garanaya marka imaanis xaq u maad su'aalo ku weydiiyey inaan si yar xaq u maad dhib yar uga yar xamaasho oo aan iskaga noqdo un baan u imid anu meeshaan say u wayna ila kumatahay sii turkaysaa habeen bay waalataa waa caadi wey hay xargaha goosato soco ku soco amay maxaa u maad dad hadda jaanis fiir 12 sano dheer ma mugta meeqa maalin waay amay qabatki meesha waa intaan meesha dhaxyaa waxba ana wada leeyahay say u miyad Habeen toban sano meeqa xargaha goosataa meeshaan 144 bil aad joogtay adeer ninka warsa ma soo gaabi saaxiib waa la doodi may abto may xaqada 144 bil aad joogtay dana meesha u safuulnay ninkan dan kale meesha maqdul way habanahay dan abu laakeeyo bisi oo aamusay maxaa adeer waa maasan tahay Soomaali maxamed waayda salaam alaykum walaalaha adeer macaani walaalkeen waa maasan tahay adeer diriiso aa biyaha kulul oo qof soo galay si wax u socotaaniyo anu moraalkiina un kor ka dhigaan in leeyahay kor ka dhiga moraal wadankeenu waa jecel lahay laakiin waa u shaqaysanayna madaxweyne inaan noqon rabna anaga hadda ku sheegay xildhibaan iyo wasiiro laakiin marka wadanka joogo ma noqon karno laakiin lacag markaa leena waa noqon karnaa ada camal waa noqon kartaa ma fahamti warka waa cadiya waa cadiyahay laakiin moraal yeesha moraal samaysta moraal waa haynaa iskuna tuubnaada midnimiya mutawfiiq isugu tuubnaada meeshan ilmana laguma dhali kara kana xamaasha wadankiina ka aada haddii xitaa sharci ilaahayna siiyo adeer gaariga lagu dhacay ma Toyota miya war ma weydiiyay midaan kale qofkan kale u soo qoraya waa meesha walaal macaan qeyr ala idinsi guur ma ku jirto meeshan arrintii oo ninkan suufay oo habeeyay oo ah arrimahan ka hadalna oo nagu socdo qofaa soo qoraa guuri wax ma fahmin qol kale furano oo guurka hadla niyo horta waa idin salaamay wax yar is dhageysta niyo ummadda Soomaaliyeed qolkan Ilaahay walaalka khayr ha siiyo waa qol ummadda wax badan u taray oo maaragtay dadku update ay ku kala qaataan dad aqoon-yahano shuruucda waddanka maaragtay aqoon u la soo xidho dadka su'aalo ay weydiiyaan markastana qofka Soomaaliga damiirka in laga dilo maaha waddankan waa lagu guursan karaa carruurna waa lagu dhali karaa dadku update bay u yimaadaan dad waxaa jira maaragtay tala iyo tusaale meesha u soo doonta war la helaa tala la helaa bay tiraa Soomaalidu in dadku ay kala faa'iideystaan walaalaheena maaragtay dhiban culaysku saaran yahay qof kastoo Soomaali oo damiir leh culayska waa la dareemayaa feerasta horta Ilaahay culayska ha ka dulqaado ummadda Soomaaliyeed ee meesha joogta walaalkana waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran Ilaahay maaragtay ajir iyo xasanaad Allah kuugu daro taariikhda ku xusaysay diriso wallahi reality-gan ku sheega ummadda wax badan baa maaragtay qolka maalikaad furaysay iyo maanta iyo inta qof ee ku xidhan inta update aniga marmar waa soo qabsadaa laakiin habeen kasta in aan dhageysto aniga waddanka waxaan joogaa 18 years citizen baan ahay culayska laakiin walaalahay saaran ma fiil garaynaya in aan la dareemo wallahi habeen kasta digis markay gaadho aniga Central Ohio ay 7 tahay waa soo qabsadaa ilaa mararka qaarkood baa 2 baa ku gaadhaa saan update-ka maaragtay iyo ummadda maaragtay xaaladda iyo wadciga ay ku sugan tahay iyo halka wax marayaan iyo walaalaha in qalbiga la isaga duceeyo in maaragtay walaalaheen Ilaahay culayska ka dulqaado in aan dhibaatada la fiil garayno waa walaalaheen Soomaaliyeed oo muslina isku diirnahay u danqano maaragtay wixii taliya tusaalaana aan ku kordhino dadka update-ka hayaa ay soo fulaan aan uga degno wixii cusubna hoos aan ka dhageysano Ilaahay khayr ha idin siiyo walaalkana waxaan leeyahay horay u soconayo taariikhda ku xusayse keep going brother thank you my brother hal su'aal aan dhaxweydiinaya oo muhiim ah ku soco go ahead wixii aga taqaanin haddaa maanta ka soo aan qaato inaa waddanka iskama saafuriyo waddankii aado markuu ninkan ma soo noqon karaa wallahi niyow shuruucda waddanka kolley dad badan oo sharci yaqaanina way jiraan waxyaabo badan oo maaragtay aan fahmi karnana way jiraan haddii maaragtay waddan saddexaad lagu geeyaa lagu leeyahay systemka Maraykan hadduu isbedelo oo maaragtay qofkaasi decision ka qaato meesha calafka ay qoraya horta